walaal muslim ah ee ku nool dalka Mareykanka ayaa waxa uu deeq soo gaarsiiyay hooyo Fay Cabdulle oo ku nool kaamka barakacyaasha ee magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. deeqdaasi uu soo dhiibay walaalkaasi muslimka ee ku nool dalka Mareykanka ayaa waxa uu isoo wakiishay anigoo ah Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Qalfa ee ku nool magaalada Jowhar. waxaan deeqdaasi gaarsiiyay hooyo Fay Cabdulle oo ku nool magaalada Jowhar qaasatan kaamka barakacyaasha ee ku yaala duleedka magaalada Jowhar. hooyo Fay Cabdulle ayaa waxa ay u mahadcelisay walaalka muslimka ee ku nool dalka Mareykanka, waxa ayna u duceysay wax khayr qaba inuu Ilaahay siiyo cadawgana uu ka qabto. waa tan hooyo Fay Cabdulle oo u duceynaysa walaalka muslimka كنتيجي أو قعدت أنا قبضتني أنت كان ميلك سوبي كايدي أهلي ولا قارف ولا لقون ما أنا ما رسول ولا أنا نسودي وسكنوا إيشيس إلك تاني على هكذا جو عادي عارف إذا كان إذا كان ما أنا ما رسول واي ما الله ما رسول تجيب بهنا ساعتين قار الله وصار ويلك أو مقعاني مقعيس الديدي أو مراكك الدي أو جرو مقع الله مقع رسول إشي إلك الله كدو قعد سيدي الكايدي أهدين والله خالك الله قعد وصار إذا كان ساعتي ساقاتين ساعتي الموارد نكي نقول مقع الله مقع رسول ويلك أينما ولا كاينما الله نوبرش الله ما يرى ما هي عليم ولا يصير بحي إلى قافل الله قنقه. hooyo Fay Cabdulle oo ku nool kaamka barakacyaasha ee magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa ay codsanaysaa in gargaar kale la soo gaaro iyada iyo maamooyinka dhigooda ee ku nool kaamka barakacyaasha ee magaalada Jowhar. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Qalfa, magaalada Jowhar.